warkana ku daawan doontaan ee xiisaha lana waxaa kamid ah xayndaabka awoodda Eritrea waa kuwa shanta nin ee ku hareeraysan asaska Afwerki sababta ka dambaysa guushiisa ayaad warkana ku daawan doontaan Xasan Sheekh oo 3 maalin oo xabsi ugu jiray Saciid Cabdullaahi Deni kadib maanta u soo baxay magaalada isla markaana booqday xarumo muhiim ah wararka ugu dambeeyay ayaa daawan doontaan beesha Abgaal oo arrinkaasi ka carootay ayaa warkana qayb ka ah sidoo kale waxaan eegi doonaa talaabooyin ka socda magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland aynu ku bilownaa maxaad ka taqaanaa xayndaabka awoodda badan ee Eritrea iyo shanta nin ee ku hareeraysan hogaamiyaha dalkaas asaska Afwerki madaxweynaha Eritrea asaska Afwerki waa nin jaangooya dagaalka sokeeye Itoobiya ka socda waa ninka jiheeya siyaasadda gobolka Geeska Afrika xukunkiisa kale taliska ayaa dalkiisa ka dhigay mid dunida inteeda kale ka go'an waxa uuna xakameyn adag u galiyay muwaadiniinta isagoo awoodda Eritrea militariga u arkay sida kaliya ee qaran lagu maamulo siyaasi oo markaasi da'diisu tahay 67 sano jir wuxuu talada dalka qabsaday sanadkii 1993 wuxuu dalkiisa hogaaminayay gacan bira taasoo qayb ka qaadatay hogaaminta dalkiisa waxuu sidoo kale ninkan xisbigiisa cadaaladda iyo dimuqraadiyadda ee dalka xukuma ma qabtaan wax doorasho waxaana daayarta wadanka ku waajibiyay dibow iyo layli military oo qasaba inay maraan si ay dalka u difaacaan haddii dagaal yimaado qaramada midoobay ayaa dowladdiisa saartay cunaqabatayn maadaama ay taageero siiso kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya Mareykanka ayaa sidoo kale cunaqabatayn ku soo rogay xisbiga talada haya iyo hoggaanka dalka maadaama ay ku lug leeyihiin dagaalada gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ka socda Eritrea waxay dagaal qaraar Itoobiya kula gashay hanashada xukunkeeda iyadoo dal madax bannaan noqotay sanadkii 1993 xiriirka labada dal ayaa tan iyo markaas xumaa waxaana jiray muran xuduudeed labada wadan u dhaxeeya oo ilaa hadda xal waara laga gaarin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa durba markii uu la wareegay talada dalka sanadkii 2018 wuxuu heshiis nabadeed la saxiixday madaxweyne Afwerki wuxuuna dalka u furay bog cusub oo iskaashiya in yar kadib waxaa wada jir dagaal ugu qaadeen ururka TPLF ee qowmiyadda Tigreega jariiradda The African Report ayaa hadda warbixin ay qortay ku eegtay ragga ku hareeraysan asaska Afwerki oo Afrikaanka ee awoodda Eritrea jaangooya haddaba maxaad ka taqaanaa Yemen Garabeeb waa ninka labaad ee ugu awood badan dalka Eritrea kadib madaxweyne asaski wuxuuna dalkiisa uu qaabilsan yahay arrimaha dibadda wuxuuna door libaax la ka qaatay qaybinta Eritrea ee dagaal ka socda dalka Tigray ninkan oo diblomaasiga ugu sareeya ee dowladda Afwerki wuxuu qaabilsan yahay dhaqangelinta siyaasadda arrimaha dibadda booskiisa rasmiga ama shaqadiisa rasmiga waa la taliyaha gaarka ee madaxweynaha iyo madaxa arrimaha dibadda ee xisbiga talada haya wuxuu ka tirsan yahay xukuumadda muddo 30 sanadooda wasiiro badan oo arrimaha dibadda intuu joogay xilalka isku bedelay laakiin isagu wuxuu joogay mar walba daaha gadaashiisa wuxuuna aad meel walba wasiirka arrimaha dibadda u safrayo waxaa asalkiisu ka soo jeeda gobolka Askum ee Tigreega wuxuuna ka dhashay qoys sabool ah aabihiis wuxuu ahaa go'fane u taagan qadiyadda Itoobiya iyo Eritrea oo hal wadan isku ah ninkan wuxuu si qoto dheer ugu dhex jiraa iskaashiga xiriirka dalkiisa kala dhaxeeya Itoobiya maadaama si aada uu goliyay dagaalka Tigreega wuxuuna la kulmay diblomaasiyiinta dalal dhowr oo Afrikaan iyo Israel si uu uga dhaadhiciyo in dhankooda ay fududeeyaan cadaadiska caalamiga ee dowladda Itoobiya lagu saaray dagaalka wadankaas ka socda ee Tigreega lagu beegsaday haddaba maxaad ka taqaanaa Hogos ninka loo yaqaano Hogos waa madaxa dhaqaalaha ee xisbiga talada haya wuxuu kormeeraa xarumaha kaabayaasha dhaqaalaha dowladdiisu ay leedahay iyo dakhliga guud wuxuu sidoo kale kor kala socdaa howlaha shaqo ee wasaaradda maaliyadda Hogos iyo madaxweyne Afwerki uunba gacanta ku haya xogaha maaliyadeed ee muhiimka ilaha dhaqaale ee dalka Hogos wuxuu ka soo jeedaa deegaanka Toyan ee dhulka Tigreega kamida waxaa intaas dheer Hogos wuxuu kormeeraa shirkadaha hoos shaqeeya ciidanka qodada macdanta iyo sidoo kale dhoofinta mashaariicda madaxqodista bisha wuxuu sidoo kale dhaqaalihiisu gacanta ku haya dawladda waxaana dakhliga iyo qarashaad ah
oo ka warbixiya madaxweyne Asiiski. ninkan wuxuu ka mid yahay dadka awoodda badan. sidoo kale waxaa jira nin loo yaqaano Yamane Gabramaas. Yamane waa hoggaanka iyo isku xiraha maamulka sare iyo dhammaan xafiisyada wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda. waa maareeyaha ugu kartida badan ee howlaha hoose qabta iyo dowladda iyo gacan-yarayaashiisa. wuxuu gaar la yahay wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale sanadkii 2015 wuxuu noqday hoggaanka shaqaalaha xafiiska madaxweynaha iyo awoodda qarsoon ee jagada madaxweyne ku-xigeenka dalka. wuxuu sidoo kale ka soo jeedaa magaalada Agame ee gobolka Tigray. aabihiis wuxuu si adag geefane u taagan u ahaa in lala midoobay Itoobiya. ninkan wuxuu sidoo kale isha laga soo xigto wararka Eritrea, wuxuuna aad ugu firfircoon yahay Twitter-ka oo soo dhiga wararka ku saabsan dowladda iyo sidoo kale hadallada la xiriira. waxaa si weyn loogu xasuustaa inuu isagu soo gudbi jiray markii madaxweyne Xasan Sheikh uu booqday dalka Eritrea. nin kale oo lagu magacaabo Abraha Kaza kaasoo madaxa hay'adda sirdoonka Eritrea wuxuu kaloo maareeyay howlaha dagaalka iyo sirdoonka dalalka Afrika oo dhan. Abraha wuxuu ka soo jeedaa koonfurta Tigray. waa isku duwaha iyo agaasimka guud ee taliska Afrika u qaabilsan hay-adda ilbaabinta ama basaasida oo xitaa ay ku jiraan militariga dalka. waxaana hogaamiya kuwa kale balse sida Abraha uma baahna awood buuxda. ninkan qayb kama ahan go'aanada la gaaro iyo dejinta siyaasadda gudaha iyo falcelinta la wadaaga madaxweynaha. hawshiisu kaliya waa in lagu dhaqmaa amarka la soo faro. iyo markii xisbiga xoogga dalka hayay sanadkii 1970 waxa uu ka mid ahaa dadka gadaal wax ka maareeya siyaasadiisuna ay tahay fulinta hadalka ninkan. sidoo kale ninka la yiraahdo Zamhered asagana waa shakhsi kale oo awood badan oo dalka, wuxuuna si weyn u maareeyaa howlgallada. ninkan waa qaaxada iyo maskaxda lagu maamulo taliska Afrika. wuxuu maareeyaa howlaha propagandada ah ee dowladdu marin habaabiso. ra'iisul wasaaraha guud iyo hoggaanka cilmi baarista kaydka qoraalada ee xisbiga talada haya awoodda sidaasi u sii buuran ma lahan, laakiin la kulankiisa madaxweynaha waa uu kooban yahay. wuxuuna aragtidiisa ku saleeyaa fikirka maxamiyadda ah, wuxuuna aad uga soo horjeedaa aragtida markaasi ciidamada in loo helo dalalka Yuhuudda ayuuna saaxiib la yahay. waana shakhsi kale oo ku weyn siyaasadda dalkaas. haddaba maxaad ka og tahay Xasan Sheikh Maxamuud oo muddo kadib banaanka u soo baxay kadib 3 maalin oo siciidani shaqo gaar ah la lahaa? madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maalinka afraad ku sugan magaalada Garowe ee Puntland, wuxuuna dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay gudaha Garowe kadib 3 cisho oo ku sugnaa halkaas, markaas oo lagu eedeeyay inuu siciidani xabsi guri u yahay. madaxweynaha ayaa markii hore ku mashquulay wada hadallada xalka loogu raadinayo madmadow ka dhex jiray dowladda federaalka iyo Puntland, wuxuuna shiraar aan loo kala kicin la yeeshay hoggaanka maamulkaas. inta badan tallaabooyinka la qaaday waxa u badan kuwa loo qorsheeyay safarka madaxweynaha, waxaana la xaliyay dhammaan intii wax laga qaban karay. labada mas'uul si wada jira waxay ugu soo muuqdeen munaasabad casho sharaf ah oo Garowe ka dhacday. sidoo kale Xasan Sheikh ayaa la soo wariyay inuusan wax xal ah kala gaarin hawshaas. ugu dambeyntii wasiir Cabdi Shire ayaa uga warbixiyay madaxweynaha wafdigiisa qaabka shaqada, wuxuuna sheegay in Puntland ay si weyn u soo dhaweynayso xiriirka dowladda federaalka balse aysan jirin horumar laga gaaray wada hadallada. dhanka kale beesha Abgaal ayaa si weyn uga soo horjeesatay in madaxweyne Xasan Sheikh uu ku sugnaado muddadaas Garowe. waxay sheegeen in Puntland ay tahay maamul goboleed, sidaas darteed ay tahay inaan arrinkaasi la marin habaabin, dadkuna ay dhageystaan hadalka madaxweynaha. waxay Puntland kula taliyeen ixtiraamka madaxweynaha. xildhibaano ka tirsan Puntland ayaa qoraalle ay ku baahiyeen bartooda bulshada waxay sheegeen in madaxweynuhu uu xarig ugu jiro ama madaxtooyada ku xirtay hogaamiyaha maamulka siciidani, taasoo beesha ka carootay, sheegtana inuu yahay hadal kala fogeynaya beelaha Soomaaliyeed. waxay sheegtay in madaxweynuhu uu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ayna difaacayaan, loogana baahan yahay dhammaan dhinacyada in arrinkaas si weyn looga wada shaqeeyo.
taasina waxay muujisay dadaalku halkuu joogo iyo sida dhinacyada kaga go'an tahay abuurista xal siyaasadeed iyo qorshe midaysan. waxaa sidoo kale la soo wariyey in madaxweynuhu dhowaan soo duuli doono muqdisho soo gaari doono. gudahaan daawadayaal intaasi waxaa nooga warka Warar TV tan intaa mar kale kulmayna xaqiiqda tagnaa sida ay nabadgeliyo waad ku mahadsantihiin daawashadiina.